السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. inta badan inagoo isticmaala timirta haddana markaynu timirta isticmaalayno waxaynu iska tuurnaa lafta timirta dhexda ugu jirta. laakiin tijaabooyin iyo daraasado ilaa 10 gaadhaya oo lagu sameeyay laftimireedda waxa lagu sheegay inaanay sax ahayn in la tuuro lafta timirta dhexda ugu jirta, iyagoo khubaradani sheegay in laftimireedda ay ku jirto maado u fiican ilkaha iyo ciridka isla markaana ka ilaalisa igfashanka iyo xanuunka, iyagoo ku taliyay in laftimireedda inta laba loo kala jeexo kadibna afka la geliyo oo afka lagu hayo ama la muudmuudsado ilaa 20 daqiiqo. dhinaca kalena in laftimireedda la burburiyo oo la daqiijiyo kadibna shaaha lagu darsado waxay sheegeen inay dawo ka tahay xanuunka la yiraahdo maradu noqoros ee ku dhaca maqaarka, isla markaana marka qaabkan loo isticmaalo waxay u fiican tahay dadka qaba xanuunka sonkorowga iyadoo wanaajisana dhiigga. dhinaca kalena in laftimireedda la daqiijiyo oo budo laga dhigo kadibna biyo lagu darsado waxay dawo ka tahay dhagxaanta ku samaysanta kaliyaha. sidoo kalena marka qaabkan loo isticmaalo waxay u fiican tahay ruuxa dumar ee ilmaha nuujinaysa iyadoo badisa caanaha ilmuhu uu ka shaqeeyo hooyada. aad baad u mahadsantihiin.